ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku dileen joogayaal caan ah oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada commandoska ee Danab ayaa ka war helay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen qabayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Gamoole oo qiyaastii 48 kiiloomitir u jirta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxa ciidamada commandoska ku dileen ku dhawaad 16 horjooge waxayna dhaawaceen sidoo kale in ka badan tiradaas. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa soo qabtay hub iyo saanad ciidan. Kusimaha taliyaha guutada 16aad ee commandoska Danab ahna taliyaha ururka 7aad ee guutada 16aad Dhamma Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure ayaa u xaqiijiyay idaacadda ciidamada qalabka sida howlgalka uu u dhacay. Howlgalkan ayaa fuliyay ururka 7aad ee guutada 16aad ee ciidamada xoogga dalka kadib markii ay ka war heleen in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dhibaateynayaan shacabka ku dhaqan deegaanka Gamoole iyo tuulooyinka hoostaga. Ciidanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha Dhexe ka waday howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.